حرتون يبو أها أفكودنا أوحنا أنا حيومون وحنا وري حرام saaka waxaa halkan ku sugan dhammaan suxufiyiinta ka howlgala gobolka Awdal oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Boorama waxay suxufiyiintu ka arisanayeen oo ka wada hadlayeen arrimihii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay xagga saxaafadda Soomaaliland oo ay ugu horeyso arinta la xidhiidha shirweynaha dhawaan la filayo in lagu qabto magaalada Hargeysa oo runtii noqday mid u eg mid suxufiyiinta magacooda oo dhan loo adeegsanayo hase ahaatee aanay suxufiyiintaasi u wada qabin wixii shirkaasi looga arisan lahaa sidaas darteed waxay soo saareen 5 qodob oo la xidhiidha arrimaha suxufiyiinta Soomaaliland jooga suxufiyiinta madaxa bannaan ee gobolka Awdal dhammaan suxufiyiinta ka howlgala waxay isku raacsan yihiin in ay si wada jira u qaadaceen waxa loogu yeedhay shirweynaha suxufiyiinta Soomaaliland ee la filayo in laga qabto Hargeysa iyo wixii ka soo baxaba suxufiyiinta gobolka Awdal waxay ku wargelinayaan qaybaha bulshada iyo hay'adaha arintaas la xiriirta warbaahinta in aanay jirin wax ka khuseeya shirkaasi iyo gudiyada la daalacnaaliyo wartabiyeenada gobolka Awdal waxay isku waafaqeen in aanay jirin gudi warbaahineed oo shir ku qabata magaalada Hargeysa kaasi oo iyaga lagu matalayo dhinaca kale suxufiyiinta gobolka Awdal waxay fariin u dirayaan hay'adaha iyo maamulada ay khusayso arintani waxaanay u sheegayaan uguna baaqayaan in ay wixii faragelin ah ee suxufiyiintaasi la siyaasadeynayo inaanay dhinac ka noqonin ugu dambeyn waxay isku afkartay suxufiyiinta gobolka Awdal in ay si buuxda uga soo horjeedaan shir magacooda lagu matalayo oo lagu qabto Hargeysa iyo waxa ka soo bixi doonaba intaas ayuu ku eekaa warmurtiyeedka ay ka soo saareen kulankoodii ay maanta ku arinsadeen oo shirkaasi jiraadan ku soo koobnay waxana u dhan oo halkan ku saxeexan dhammaan suxufiyiinta gobolka